maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 27 ayaa maanta u fadhiisatay garmaqalka eedlid ku ah eedeysane xidigle xooga Maxamed Aadan Maxamed Isaaq oo xafiiska xeer ilaalintu ay ku soo eedeysay in uu nolosha dhaafiyay laba xidigle xooga Aadan Maxamed Xasan falkaasi oo taariikhdu markii ahayd 11 bisha labaad sanadan 2022 ka dhacay degmada Balad Xawe gobolka Gado ugu horeyntii ayaa waxaa garmaqalka maxkamadda daafuray gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 27aad gaashaanle Maxamed Amiin Cabdilla Aadan maxamed waxaa lagu eedeynayaa dambiga ah dil kas ah kadib markii aad si bareer ah u dishay marxuum la dhihi jiray laba xidigle xooga Aadan Maxamed Xasan taariikhdu markay ahayd 11 bisha labaad 2022 dilkaas oo ka dhacay degmadan Balad Xawe ee gobolka Gado dambigaas oo ku xusan aayadda 178aad suuratu al-Baqara qodobka 195 bis xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida oo la akhriyo qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxamed eedaas lagu soo eedeeyay waxaad kaga jawaabi kartaa jawaabaha soo socda eedaas liigu soo eedeeyay waan galay eedaas liigu soo eedeeyay ma galin eedaas liigu soo eedeeyay dood ayaan ka qabaa sidoo kale xafiiska xeer ilaalinta ayaa soo bandhigay cadeymo ay ka mid yihiin xaashida dhakhtarka marqaatiyo nool iyo qorigii falka lagu geystay isagoo oo maxkamadda ka codsaday in eedeysanaha la marsiyo ciqaabta u qalanta eedeysanaha wuxuu degmada Balad Xawe u yimid si uu u dilo marxuum laba xidigle xooga Aadan Maxamed Xasan eedeysanaha wuxuu marxuumka ka raadiyay xiradiisii markuu ka soo waayay xaafad ayuu ku loogu sheegay xaafadii yimid sidaas darteed xaafadii uu soo galay si bareer ah oo ku talagal ah ayuu u dilay sidaas awgeed eedeysanahan si ku talagal ah ayuu marxuumka u dilay sidaa darteed maxkamadda horteeda waxay weydiisay ayadoo ilaalinayso qodobka 104 in dambigan uu galay uu qirsan yahay inuusan galin wuxuu ku jawaabay 108 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed taasoo ah in uu dambigan si bareer u galay ayuu maxkamadda horteeda ka qirtay saa darteed maxkamadda waxaan ka codsanayaa in eedeysanahan ay ku xukunto dil toogasho ah dhanka kale baaraha kiiskan ayaa isaguna waxa uu soo bandhigay baaritaano qoto dheer oo uu ku sameeyay kiiskani qareenka u doodayay eedeysanaha ayaa isaguna dhankiisa codsaday in eedeysanaha loo fiiriyo qodobka 4aad ee ah sifaalaha dambiga fududeeya maadaama uu kiiska qirtay maadaama uu maxkamadda horteeda uu ka qirtay inuu dilay laba xidiglaha taliyihiisa ahaa maadaama maxkamadda horteeda la keenay marqaati maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa inay u fiiriso qodobka 4aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed kaasoo sheegayo sifaalaha dambiga fududeeya maxkamaddu lamaasanta ugu dambeyntii waxaa garmaqalka soo xiray gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 27aad gaashaanle Maxamed Amiin Cabdilla Aadan isagoona sheegay in maxkamaddu ay go'aan ka gaari doonto dhageysiga garmaqalka la xiriira eedeysane xidigle xooga Maxamed Aadan Maxamed Isaaq kaasoo ku eedeysan in uu si bareer ah u dilay marxuum la dhihi jiray Allah u naxariistay laba xidigle xooga Aadan Maxamed Xasan halkan ay maxkamadda ku gabagabaysay maxkamadda ayaana go'aan soo saari doonto wabillahi tawfiiq